Tani waa Japan oo 10 sano ka horeysa caalamka intiisa kale. Waxay ku aanbaxday dhismaha qadiimiga ah, dhismooyinka casriga, wadooyinka iyo dhismayaha hadda socdaan ee China ugu horumareen Japan. Japan waxay dhisaysaa waddo dhexmarta buuraha. Waddadaas ay u diyaarinayaan tareenka ugu xawaaraha sare caalamka. Waa isla Japan oo ah dalka kaliya ee aaladaha casriga ah u adeegsada nolol maalmeedkooda saxda ah. Cagaftu waxay diyaarinaysaa waddada tareenka ugu xawaaraha sare caalamka oo ah tareen xawaariis gaaraya 700 kiiloomitir saacadiiba. Japan horumarka ka socdo waa sida hilaaca oo kale oo qof iska indhitiraya ma jiro. Tareenkani ayaa tareen isku xira gobollada Japan iyo caasimadooda Tokyo. Gobollada sida Hiroshima, dadka degan gobollada kale waxay subaxdii u soo shaqo doontaan caasimadda Tokyo ayagoo xawaaraha tareenkooda ku tashanaya sidii ugu habaabeen waqtiga shaqada. Waa Japan dadkooda sii kordhaya oona ka cararayaan isku dhex furanka wadooyinka ayagoo adeegsanaya dadka ugu tirada badan in saacad gudahood iskala kala gooshaan gobollada Japan. Maadaama ay sii kordhayaan tirada dadka reer Japan, dowladda Japan waxay go'aansatay inay horumariso goobaha tareemaha laga raaco si dadka saacadiiba in ka badan 100,000 oo qof ay iskugu safraan gobollada. Dadka reer Japan ayaa ah dad ku tashta waqtiga, aad ula socda tiknoolajiyada ay dowladooda ku xanaqaaday. Dadka qaar ayaa u adeegsada nolol maalmeedkooda saxda ah isticmaalka tareenka xawaarihiisa sareeya. Marka loo eego basaska magaalooyinka ee gobollo ku kala goosha, ayaa wuxuu tareenkani in ka yar saacad ama saacadii bar ku gooshaa in 7 saacadood iyo 8 saacadood ay ku qaadanayso basaska magaalooyinka u kala goosha. Tareenkan ayaa shaqeeya habeen iyo maalin. Wuxuu maraa meelaha ugu quruxda badan ee dhanka dalxiiska Japan si dadka indhahooda ugu sii doogsadaan horumarka ay gaareen iyo hiigsigooda fog. Buundooyinka waxaa hoos dhaca biyo, korna waxaa ka mara tareen oo waxaa sii arkaysaa meelaha ugu quruxda badan Japan intuu tareenkaas socdo, oona awood u leh in ka badan 2,000 oo kiiloomitir uu ku gaaro wax ka yar 3 saacadood. Dowladda Japan ayaa intaasoo bilyan oo dollar ku qarash garaysa sida waqtiga u ilaaliyaan oo dadka reer Japan uga dhigaan dad waqtigooda ka qiimo badan tahay lacagta ama shaqada ay haystaan. Tareenka ayaa iskaga kala goosha gobollada qaar waxay u socdaan gobolkii qaarna caasimadda, oo micnaheedu ah in aad caasimadda ka tegtid subaxdii isla galabtiina aad ku soo laabatid amise u soo shaqo doonatid caasimadda oona casir liiqii dib ugu laabatid gobolkii aad ku nooleed si nolol maalmeedka iyo shaqadaada isla shaqeeyaan. Waxay indhahay qabanayaan daaraha aad ku dhadheer, leerarka birqaya ku xiran ee Japan, taasoo la micno ah Japan inay isku diyaarisay dhismooyin dowladda ah
tareenkani uu socdo waxay la mid tahay adiga oo fadhiya goob aad ku caweynaysid sida degnaanta iyo qaab-casriyeedka loo dhisay awgiis. waxaad dareemaysaa inuu tareenka socdo markaad eegtid daaqadda mise aad gaartid goobtii aad u raacdo tareenkaasi. shacabka reer Japan ayaa u soo shaqo taga gobollo kale si ay galabtii ugu laabtaan gobolkooda. dadka ayaa ku faraxsan waqtiga ay dowladda ugu talagashay shacabka inuu ka lumin si ay u isticmaalaan tareenka xawaaraha sareeya ee Japan. dowladda ayaa hiigsanaysa sanado kooban gudahooda in tareenku uu ka noqdo sida taksiyada oo kale, oo macnaheeda ah gobolka waqooyigiisa iyo barigiisa in saacad gudaheeda laiskugu kala gudbo